waa channelkii bin ciise ku soo dhowaada iyo xalaqad cusub. maanta waxaanu ka hadlaynaa sheeko ku timi qur'aanka kariimka ah suurat alkahf oo muran ka taagan yahay oo ah tirada ahlulkahf. suurat alkahf waxay ugula magac baxday dhalinyaro muslimay oo kahfi ama god intay galeen 309 sano bay hurdeen. kabacdi 309 sano bay soo tooseen, markaasay ku murmeen ayaamahay hurdeen. marka muranka halka dadku markaa ka taagan yihiin tirada dhalinyarada ahayd imisay ahaayeen. marka halkan waxaan kusoo gudbinaynaa oo ku xaqiijinaynaa tiradii ahlulkahf ama asxaabulkahf ay ahaayeen oo weligeed muran ka taagnaa. mufasiriintu ku murmeen, laakiin muslimiintu meel bay u bateen, tiray u bateen raggii waaweynaa mufasiriinta ahaa. marka annagoo qur-aanka adeegsanayna, meel kale ma adeegsanayno, tirada qur-aanka iyo graamarka qur-aanka iyo xisaabta qur-aanka iyo naxwaha qur-aanka siduu u dhacayo baanu ka soo saaraynaa ahlulkahf imisay ahaayeen. waa saale ciise la socda. haddaba tirada asxaabu kahf imisay ahaayeen waa meeshu muranku ka taagan yahay. 3 bay ahaayeen mise 5 mise 7? qur-aanku wuxuu noo soo wariyey dadku sida u murmayaan, inay 3 ku murmayaan, inay 5 ku murmayaan, inay 7 ku murmayaan. qur-aanku toos uma sheegin, laakiin sheekadu iyo hadalku sida u dhacay baanu ka ogaan karnaa tiradooda. intaanan u gudbin tirada imise ahaayeen waa inaan horta naxwaha carabiga soo fahmna in yar oo basic naxwo ah. basicka naxwo ah waa inuu noo kala soocan yahay. carabiga waxaa la yidhaahdo mufrad iyo muthanna iyo jamac. mufrad iyo muthanna iyo jamac. carabiga mufradka waxaa loo isticmaalaa hal qof, hal shay oo keliya ama hal qof. muthanna waxaa loo isticmaalaa luqadda carabiga wixii laba ah, laba qof ama wix shay oo laba ah. jamac waxaa loo isticmaalaa carabiga wixii 3 ka badan, 3 iyo wixii ka badan. waa 3 iyo wixii ka badan, waa hal qof, laba qof, 3 iyo wixii ka badan. mufrad iyo muthanna iyo jamac. marka kelimada qaal waxaa loo isticmaalaa mufradka halka qof, qaal weeye. qaala waa muthanna, labada qof. qaaluu waa jamac, waa 3 iyo wixii ka badan. marka waa inaan kelmadaha noo kala soocan yahay qaal iyo qaalaa iyo qaalu. wax adag maaha, waa naxwaha carabiga. sheekadaasaan ku garan karnaa tiradooda imise ahayd. naxwaha kan ma 3 bay ahaayeen mise 5 mise 7? suurat alkahf markaanu eegno, waatan suurat alkahf. بسم الله الرحمن الرحيم. waxay ka bilaabantaa الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
halkaasay ka bilaabantaa. waa suurad xoogaa yar dheer, 110 aayadood mise 110 aayadood weeyaha, waa 110 aayadood. haddaanu aayadda 19aad eegno, aayadda 22aad baan ula jeedaa. aayadda 19 waxaan dib baa ugu noqonaynaa. aayadda 22aad waxay leeyihiin acuudu billahi min ashaytaan rajiim. ilaahay wuxuu yidhi sayaquuluuna 3 raabicuhum kalbuhum wayaquuluuna 5 saadisuhum kalbuhum rajman bilqayb wayaquuluuna 7 وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. halkan ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay waxay leeyihiin sayaquuluuna, waxay oran doonaan 3 raabicuhum kalbuhum, 3 bay ahaayeen eygaa ku 4. waxay leeyihiin 5 eygaa ku 6 saadisuhum kalbuhum rajman bilqayb, iyagoo iska murmaya. wayaquuluuna 7 وثامنهم كلبهم, waxay leeyihiin ilahay wuxuu yidhi wayaquuluuna, yani hadalka ilaahay iyagoo ka soo guuriyey. 7 وثامنهم كلبهم waa 7 eyga ku 8. qol rabbii, waxaad tiraahdaa nebi maxamedow, rabbi aclamu biciddatihim, ilaahay baa tiradooda og, maa yaclamuhum ilaa qaliil, in yaro way og tahay, dad tiro yar ana oo kooban way og yihiin. yani ilaahay of course wuu og yahay, maaragtay, dad yarna way og yihiin. falaa tumaari fiihim ilaa miraa'an daahiran walaa tastaftii fiihim minhum axadan, ha kula murmin ilaa wax cad aadaysid maaha midna waxba ha ka weydiinin. halkaasaa tirooyinka lagu soo sheegayaa. haddaanu ku noqonno aayadda 19aad, aayadda 19aad waa taa, waxay leedahay wakadalika bacatnaahum liyatasaa'aluu baynahum qaala qaa'ilun minhum kam labithtum qaaluu labithnaa yawman aw bacda yawm قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. xoog waxaanu saaraynaa aayaddan 19aad baan si tafatiran uga hadlaynaa. aayaddii 19aad waxaan u soo qorannay si gaar ah. waa ta aayaddii 19aad. aan ku celiyo aayaddii 19aad, aayadda 19aad. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. aayaddaasu waxay leedahay markaan fasiraad yar aan sidaasoo kale dib baan u soo celinay markay hurdada kasoo toosan weeye.
309 sano markii hurdeen hurdada ka soo tooseen sheekadii dhex martay وبعثناهم ليتساءلوا بينهم si ay iyagu isku weydiiyaan iyaga qaala qaa'ilan minhum kam labithtum mid ka mida wuxuu yiri imisaad hurdeen ama imisaad joogteen meesha imisaan hurdnay qaaluu labithnaa yawman aw bacda yawm kuwa waxay jawaabeen waxay yiraahdeen maalin ama maalin qaarkiis kuwa waxay yiraahdeen qaaluu rabbukum a'lamu bima labithtum ilaahay baa og imisaad hurdeen ama aad deganaydeen fabcathuu axadakum biwaraqikum haadihi ila almadiina mid idinka mida lacagtan u dhiiba oo magaalada ha tago falyandur ayuha askaa طacaaman ha eego cunto fiican falya'tikum birisqin minhu haynoo keeno ama haydii keeno risiq ka mida ama raashin ama cunto waliyatalataf si fiicanna ha ula dhaqmo dadka cuntada uu ka keenayo yuusan la murmin walaa yushciranna bikum axada cidna yuusan wax dareensiinin yaan la idin ogaanin marka halkaas aayadaasaanu ka xisaabinaynaa tirada asxaab alkahf siduu qur-aanku sheegay dadku wax ku murmay 3 ama 5 waxaa lagu murmay ma 3 baa mise waa 5 mise waa 7 mid baan tirada aanu qaadanayna waxaanu qaadanaynaa haddee 3 tahay maxaa dhacaya xisaabtu sida u dhacaysaa haddee 5 tahay xisaabtu sida u dhacaysaa haddee 7 ahaayeen xisaabtu sida u dhacaysaa waa habka markuu muran joogo loo xisaabiyo xisaabtu markii muran ka taagan tahay mid baa loo qaadaa marka mid baan u qaadaynaa ka soo qaad tiradu haddii ahaayeen 3 haddii 3 ahaayeen maxaa dhacaya mid baa hadlay qaala waxaanu niri waa hal qof baa hadlay qaala qaa'ilun minhum kam labithtum marka halkan hal qof baa su-aasha wax weydiiyey marka annagu waxaan ka soo qaadnay inay 3 ahaayeen mar hadduu mid hadlay 2 harsan keliya 2 laakiinse waxaa jawaabay qaalu 2 wax ka badan baa ka jawaabay halka marka 3 ma shaqaynayso mid baa hadlay waa ka Soomaali baan ku qoray hadda qaal 2 wax ka badan baa ka jawaabay qaalu marka 3 qof way ka badan yihiin saasaanu 3 inaynan ahayn ku cancel garaynay marka ma dhici karto 3 inay ahaayeen hadda waxaan ka soo qaadaynaa inay ahaayeen 5 haddii ahaayeen xisaabta halkaan ka gelinaa wakadhalika bacatnaahum liyatasaalu baynahum qaala mid baa hadlay mar hadduu mid hadlay 4 baa hadhay waxaan ka soo qaaday inay 5 ahaayeen marka 5tii markuu mid hadlay 4 qof baa harsan 4tii qof qaaluu ka soo qaadba 3 inay jawaabtay halkan waayo 3 wax ka badan baa ka jawaabay tirada yar baan qaadano qaaluu 3 baa ka jawaabay hadhowtona qaaluu ugu yaraan 3 kale ka sii jawaabay marka ma dhici karto 5 inay noqdaan waayo sheekadu hadalku wuxuu dhacay qaal waa hal qof qaalu waa 3 ugu yaraan marka halkan qaalu iyo qaala 4 bay isku noqdeen ugu yaraan tiradu waa 4 marka 4tii hal qof baa harsan hal qof marka kuwa kale marka ma noqon karaan hal qof ma shaqaynayso halkan saasay 5tiina ay ku gubatay haddaan af Soomaaligii aan ku qoro halka hadday 5 la mid ahaayeen mid baa hadlay qaal
ugu yaraan 3 qof baa ka jawaabay qaaluu wax ka badan waxaa ka daba hadlay tiro jamac ah oo 2 ka badan qaaluu markaa xisaabtu 5 qof way ka badan yihiin halkan waad fahamteen baan filayaa xisaabtu 5 qof way ka badan yihiin waayo qaala hal qof baa hadlay waan ku celiyey qaaluu kaba soo qaad 3 qof baa hadlay halkan iyo 3 waa 4 hal qof markaa kuwa kale ma noqon karaan tiradii u dambeysay umuranku ka taagnaa 7 inay ahaayeen 7 baanu jarjaraynaa qaal hal qof qaaluu ugu yaraan 3 daba u daa tirada yar qaaluu 3 kalaa ka daba hadlay marka halkan 7 way shaqaysay qaal hal qof baa hadlay qaaluu 3 qof baa hadlay qaaluu 3 kalaa hadlay waayo ma oran karno halkan 4 baa hadlay waayo 4 hadday hadlaan 2 ma noqon karaan 5 hadday hadlaan halkana mid ma noqon karo marka hadalku wuxuu dhacay hal qof baa hadlay 3 baa u jawaabay 3 kale ka daba jawaabay marka 1 iyo 3 iyo 3 waa 7 tiraduna ugu badnaan waa 7 wax ka badan ma jiraan af Soomaaligeena waa tan ku qoran hadday 7 ahaayeen mid baa hadlay qaal ugu yaraan 3 qof baa ka jawaabay qaaluu waxaa ka daba hadlay tiro ugu yaraan 3 qof qaaluu marka hal qof baa waxaa su'aalay 3 qof baa ka jawaabay qaaluu 3 qof kale ka jawaabay marka tiradu waxay ku salayntahay hal lagu daray 3 lagu daray 3 waa 7 weeye marka tiradu ahlul kahf waa 7 kama yaraan karaan 7 qof kama yaraan karaan inta sheekada meesha ka hadlay xitaa 6 ma noqon karaan marka saas tiradu ahlul kahf ku noqdeen asxaabul kahf 7 qof taasuna waxay support garaynaysaa tafsiirtii saxaabigii xibr al-umma Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nabiga in adeerkii ahaa oo xibr al-umma ahaa oo halkan markuu fasirayo ibn Abbas qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil markuu ibn Abbas fasirayo waxa ku tiraahda nabi maxamedow waxa tiraahda rabbigay baa og tiradooda ma ya'lamuhum illa qalil tira yar oo idinka idinka midana og ibn Abbas wuxuu yiri tirada ana kamida waa 7 halkan wuxuu yiri rajman bil ghaib 5 3 iyo 5 waxa leeyahay waa rajman bil ghaib لكن 7 التي أتكي وتفسير كابن عباس حبر الأمة مركا حسابتي مركا نقول لك الله ساسي تطبق النقدين والله أعلم رنتي لكن مركا نكرسو نحب حناي كتابك إلهي iyo mufasiriinta waaweyn meeshii u badan yihiin 7 way tirado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bin ciise channel fadlan sii share garay like na taabo subscribe ka qayb gal channelka iyo ogeysiiska bilka